jacaylku muxuu yahay? jacaylku markaan tafatir ku sameeyo waxaan ku micneynayaa isu rabaasho in qofka nafsadiisa uu wax u raboodo wax walba oo aad jeceshahay adiga isu raba sida haddii aad indhaha ku dhufato gabar aad u qurux badan adiga isu raba haddii aad shaar qurux badan aragto adiga isu raba haddii aad aragto camba bisil ama moos bisil adiga isu raba wax aad jeceshahay oo dhan adiga isu raba waan jecelahay micnaheedu waa aniga raba jacaylka maskaxda saameeyo waa kee jacaylka maskaxda saameeyo waa midka aan lagula wadin oo kaligaaga ku kooban jacaylkani waa midka dadka dila qofku hayana uu shilmaa xasuusta ayuuna ka qaadaa waana midka sababi kara in qofka kaligii uu isla hadlo waa wax abuuri kara waali qofku helo jacaylka noocaani ah wuxuu uga badbaadi karaa in Allah baryadiisa uu badiyo si laabtiisa ay u dareento qabow meel kale oo looga badbaadi karo ma jirto waxa horay u jiray laakiin anaga aan hadda ogeyn in jacaylka uu dhaxeeya ragga iyo dumarka uu dhasho micnaheedu waxaan ka wadaa uu ilmo isu bedelo ilmahana sidan wada ognahay ay yihiin wax aabaha iyo hooyada ka yimaada furiinka lidka ku ah waxaan shaki ka jirin lamaanayaasha isu dhala furiinkooda uu ka yar yahay kuwa isqaba oo aan wali isu dhalin taasina waxay noo muujinaysaa in ilmaha furiinka 80% ay yarayaan wiilka iyo gabadha markay isgursanayaan way isjecel yihiin markay in muddo ay wada joogaan waxa isbedel ku imaanaya inta badan jacaylkii xoogga lahaa ee u dhaxeeyay waa su'aal jacaylkii xoogga badnaa halkii uu ka baxay meel kale ha ka eegin jacaylka wuxuu isu bedelayaa caruur haddaba ma ogtahay haddii labada isgursatay caruur uu ilaah siiyo in jacaylkii uu dhaxeeyay hooyada iyo aabaha uu dhashay oo ilmo uu isu bedelayo maxaa yeelay ilmaha uu dhasha si aad ah ayay u jecel yihiin labadooda waa su'aale halkee buu ka yimid jacaylkaasi meel kale ha ka eegin jacaylkaasi waa kii hooyada iyo aabaha u dhaxeeyay oo caruur isu bedelay waa mid ka yimid hooyada iyo aabaha dhalashada ilmaha kadib haddii galgacaylkii uu dhaxeeyay hooyada iyo aabaha uu yiraahdo waxa isku hayn doona ilmaha oo waa raxmad Allah dhankii ay ka ahaatay